حديث والنبي يقول لي هاي باوحي هاي لبدا قف أو مؤمنين تاع أو مسلم كاع وادريري كران لكن سدح بري هدي خلاف كود وانت دافو وحوي حالدودا waa loo baqaa ummadeedana maaha labadana waxa ka khayr badan kii micna cafiyo oo ku baaqay maxal dhaha salaanta ku horeeya ninka a sheegtay waa nin Soomaaliyeed waa nin walaalkeeya muddo hadda 5 bilood lagu joogo bishii June baan u maleynaya inay ahayd ba xoogaa isqabanay hadalaan social media isu marinay anigu waxaan aaminsanahay dagaalka la sheego inuu yahay qacmara macnaa hadaa qofka Carabi labadiisa daana isugu dhow waa isqaneeni karaan maxay isu qabteen ma taala moqtay labada qof waa isku dhici karaan aniga adaa bari isu dhici karna adiga iyo qofka dad isku xiga isku dhici kara Carabi labadiisa daana isugu dhow laakiin dagaalku waa qacmara qac wixii si dhaafa xaaja rag maaha marka aniga waagaasa igu dameysay hadalkiisa dama lagama maqal aniga qalbigayna ilaaha og والله بان انت او حمان ugu haynin beri laga bilaabo waxa rabaa idinkoo games la ciyaaraysan in aan aragno walaalkaaga waaye dhageyso waxa jira dad badan oo aanan aniga la ciyaarin baa jira moogtahay qaarkood macnaa xumaan maaha moogtahay gameku waa wax qofka ku xiran waa wax labada qof ku xiran dad badan oo Soomaaliyeed oo ciyaaraha jira oo still aan wada ciyaarin waa wax marka isaga ku xiran waa wax aniga igu xiran waxaan hadda halka ka balan qaadi kara maaha laakiin ummadda Soomaaliyeed ma balan qaadi kara laakiin waxa roo inay isxasuustaan bajina dhageyso waxaan halka balan qaadaya ummadda uga sheegaya oo Ilaahay ugu og yahay wiilka wiil Soomaaliyeed weeye waxba uma qabo horay baa dagaalkii maalintii qacda ah hadalu iri anna hadalaan iri ninna ma ogtahay quraan ma aqreenay waxbaan islayn halkaas ugu dameysay June kadib anoo ninka ka hadlaya hadii la soo helo xaala ay qabanaya markaas ay ugu dameysay marka horena waa afiyay haddana hadaa adiga keentay hadalka nasteexada ah qofka bini'aadamka marka wax loo sheego wanaagu meel laga maro male dhinac loo dhaafo male walaalka iscafiya walaalka heshiya xaasha wujud ummad islaam aan nahay dad Soomaaliyeed aan nahay hadda ku celinaya walaalka Soomaaliyeed aniga afis iyo saamax buu iga yahay maalinta qiyaame la qaawan yahay ilaahay hortiisa la taagan yahay waxba uma raaco waxba uma haysto intiisna saaka marxaatiya xaraam عليك laakiin xagga geemka ciyaaridiisa iyo dadku inay saaxiib noqdaan iyo waxaasi waa wax dadku si isu fahmaan ku xiran waay dad waxa jira iyo waxaan ka dhaxayn aniga saaxiib qof walba geemka ciyaaraya miyaarta oo la ciyaaraya dadku wada dhan dadaan isoo waana aniga codsan marka saas waay وما سنت إنه صاحب غير سومالي ماذا أنا قبضن ولا لا نهاية بس قالنا سهشينو دتك لا جانسينا حاشا حاشا الله شوف جين نقضي واي الدونكم أوقتها الدين توان استحو وحوانا أكسن oo lagu sheegayo hadde maya mabalaba ma ogtahay wixii wanaaga oo nasteexa ah waa nasteex waay moqtay waa wax ku soo kordhay marka ma sha Allah ninka odayga khayr Allah siiyo islax bayna naas la yiriba islax bayna naas laba qof oo isay hada arto kuwa uurkooda macnaa isku taagtaagan ina khayra kugu jira isagana Ilaahay walaalka khayra ka siiyo داهر على سوق قبيله ضعف ماي داهر سوق قبتلين داهر ما قبيله ضعفيه ما يجيب عيار ماي داهر على سوق ميو كجرا افريكا بلا خلاص جواز ولا اركاي ميو كجرا حقيه كجرا كينج مها همبليو كينج مها هذا او ما سنتهي دي قضا وين ولا قال عندنا نقضي ما عاون نوكليير ودرتينك يا لا ليه هذه قضا كويبه جيرو هذا نقليه دي قضا هذا نقليه
أنا كابتن كأجلي والله أيوب أني جلي واحد أختي أيوب هو صدق ويسوها ما إيه قفك بني أنا كأبا خدمي كراع لكن waxa ugu khayr badan qofka iswaasada oo soo noqda dadka Soomaaliyeed weeye dad walaal ah waaye ani qurbaan joogaa magaalada aan ka deganahay qof aan isku reernahay ilama degana haddii maanta waxay ugu soo dhacaan haddaan maanta waxay u baahdo macnaha dadkaas dad igu soo horeeya iyaga hooyo iyo aabe ah marka inaan dadka is seegno waxa weeye wax ka ayaan dara ka weyn ma jirto marka maasha Allah marka adigana wallahi shiino khalas aad u mahadsan tahay rag odayaal ah tihiin dhiiqada waa galnay laakiin dadka waxa u khayr badan dadka soo noqda waa ka noqonay xilli fiican waliba inagu dadna diman lahayn dadna isku man lahayn xaalad iska caadi yahay ma sha Allah aadiya ma hal iyo laba dhahayaana war Soomaali waa Soomaali meel la kala aadi maayo maalintaad meel baad soo istaagaysaa mid Soomaali la arkaysaa markii waad dhahaysaa bal yur hadii wuxuu yahay mid qani si fiican umadaha kale ma dhahaysi marka war hawsheennii iyo dacaayadii iyo kaftankii iyo wixii iskaga soo laabano odashiina maalmahan ma hadlin ma kaftamin maqaaxidii uma kala kicin waa cabursnaa dadkaan wejiga sii weynay qabiil kaliya meesha kuma xiran moqto Soomaaliya dhanaan ku xiran ya dhiiqadii waa ka baxnaysaa ma maxaa shiino niyo maalmihii hore waad qosli jirtay dadka waad dacaadeyn jirtay waad farxi jirtay laakiin wiiga waxbaa kugu dhacay odaygu waa iswaansaday nin weyn wadkii waa yaqaanaa baa layidhi ya waxaan ku jirnaa arag marka xagee kaftan yaala dartayaa dadkiisu midda kale eeg waxaa la yidhi qofka mu'minka isxisaabi intaan lagu xisaabin markaa tahay mu'mina oo muslima oo og adduunyada waxa loo keenay oo og xisaabta bari sugaysaa waa fikiraysaa moogtahay waa fikiraysaa dambigu kaa sida tooska u gasho maaha kan sida dadban u gashaa ka badan waxa kale waa internet kelmadda halka kaaga tagtaa Soomaaliya oo dhan bay wada gaaraysaa waxa kaaga daran waxa laga yaabaa laba qof oo isjeclaa oo isku fiicnaa inay halka hadaladii iyo geemkii halka aan ka ciyaarnay xanaftii inay ku kala dhintaan oo ay xajiin kala dhex dhigto mas'uuliyadda ayaa leh anaga marka eeg dambigaygaan qaadi kari la ahay waa garanaysaa marka dadkooda dhow waa lagugu darayaa ma taaladii baa taala kale tuurta laga ma dambigii baa dambiye kale ma dambi kaayaga ma qaadi lahayn ma qof kale kiisa qaadi karayna ilaanaha mas'uul ka noqonayna marka ilaaha ka magalnay laakiin alxamdulillah hadda waa soo noqonay ilaahayna waa qafuur raxiim toobada ilaahayna waxa way mar walba ya albaabadiisu waa furan tahay adoomadiisu hadda waxa dhacday ma taqaan badan waa u soo laabanay ilaahay idinkiina waa nacafinaya hadda waxa dhacay shiino ma taqaanaa yaron saaxiibaha inuu qoriyaha xagga ba wuxuu la sheekaysan jiray gabadh xaggana moogta dee dhowr cisho malaha 3 cisho ilaa 4 cisho telefoonka qaban weyday anigii buu cay halkaa ila soo fariistay waxa adaa ka dambeeyay waa kan war anu kama dambeeyay shiinay ayuu weydii baan ku yiri hadee gabadha shiinay ayuu isku qolahaayeen dee maxaan sameeyaa anu hay dee markii dambe soo laabo arinta darteeda uga qaban weyday ha hadda waa dambiyada leenahay wey haddaysan sheeko waa fududahay haddaysan waa isfureen aadan lahayn waa alxamdulillah waxay tiri imaba geeyay adigu arrintii iska dhamaatay markii dambe shiina Soomaalida maxaa leedahay Soomaali waxaan leenahay Soomaalida inoo balana taasaan isku ognahay taasaa dadku wax ku yahay Soomaalinimo ba inoo balana ninkaasi waa nin daarooda oo dhulbahanta awaay ana nin warsan galiyana daaroodnima hadda ku wada soconay laakiin wallahi oo billahi oo tallaahiya waxa khubaal haddii qabiilku sii socdo inuu sanad dhulbahanta noqonayo ana warsan gal noqonayo kala leexanayno ayubna uma jirtay noqonayo ninka kale noo socda ogaadeen noqonayo nin kale maxaa ku dhahaa mareexaan noqonayo iska dhaaf kan mareexaan isii haysanayn reer diini wagar dhacsaa loo kala tegayo ilaa jifiya hoos la socdo kan ogaadeen qabiil marka waxa kaliya oo dadka aan kala qaybsamin qabiil hawiye la mid qabiil kala saar hawiye kala saar wuxuu galaa qabiilku waa wax sarrifmaya
laakiin waxa aan sarrifnin waa soomaalinimay ka bilaabataa soomaalinimo ku dhamaataa soomaalinimo macnaha xaggana kaba aadi karta laakiin qabiilku waa geed caleemale ya hadda maanta miswol gabar walaashay oo ooyeysa oo leh qolkii tolkay qof tol kale ah baa iga saaray macnaha qabiil wakaa moogtahay waa hubaal waa xaqiiq maanta hawiye waa midaysnaan karaa laakiin berri ma sii soconayso nin walbaa dif uu noqonayaa daarood hadduu maanta midaysan yahay berri ma midaysnaan qabiilkaas sidaas ah waa waxna laga dhergsan yahay oo kingamaha markhaati iga yahay oo idinkana markhaati iga tihin ma waxaad leedahay inuu ka tanaasulno qabiilnimadoo dhanba mise waxaad leedahay mar jimcaha ku tuurano horta eeg wax waa garasho hadda maanta anigu haddaan gabar mehersanaayo reerkan gabadha ka doonayo anoo reer hebela macnaha la tacaaruf waa adress aniga hadda Germany baan deganahay ya guriga kan aan deganahay adress buu leeyahay wuxuu leeyahay area magaalada magaceedu leeyahay wuxuu leeyahay areadu 5 number code bay leedahay 4 number ba mise 5 number ba umleena istraasa magac buu leeyahay gurigu number buu sii leeyahay halkaas la iga soo helaya warqada la igu soo diraya adresskayga halkaas qabiilku waa adress inagu bacdameena ummad horumartay ahayn halakan kama jiro qof qabiil ku abtirsanaya magaaladaas ku dhashay xaafada adresska gurigaas lagu leeyahay deganaya hadda laakiin inaga qabiilka muxuu yahay in hebel ilaahay baa inuu ku yiri quraanka waxaan idinka dhigay shucuub iyo qabaa'ilo litacaaruf sa isu gartaan laakiin waxa idinku karaamo badan qofka xagga ilaahay waxa idinku karaamo badan qofka ugu alla ka cabsiga badan